xildhibaan cali jaamac dhagacadi oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Puntland ee ka soo jeeda gobolka Sool oo ka hadlay dhacdadii u dambeysay ee ka dhacday aaga gobolka Sool oo ay isku horfadhiyaan ciidamada difaaca Puntland iyo kuwa Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabkii ay u dhacday arintaasi waxaana uu eedayn u jeediyay xubno ka hadlay magaalada Hargeysa oo uu tilmaamay inay ka been sheegeen xaqiiqada arintaasi dhacdadaasi waxay ahayd niman u shaqeeya maamulka jeegaanta oo reer Taleexa oo ku socday magaalada leeyahay Laascaanood baa habaabay oo dayoobay markay habaabeena waxay si khalad u soo galeen xiriyihii ciidamada jiida hore difaaca nimankaas markay halkaas soo galeen ciidamadii waa joojiyeen markii la joojiyay oo labadii gaari ay isdaba socdaan ninka barasaabka ugu qoran iyo ninka dhintay oo isna ciidamada ahaa iyo nin kale oo isna maayar ugu magacaaban iyo kulli intaan ka xasuusto oday reermiye oo laga soo qaaday meesha la yiraahdo Taleex oo Laascaanood ku socday nimanka markii la joojiyay oo ay ogaadeen inay position khaldan taagan yihiin habeen hore oo dhan ay wareegaysanayeen oo gawaarida leerkooda la sheegay gawaarida marka laamiga ku soo dhawaanaysa marka dib uga noqonaysa oo ciidamada ay istaanbis ka yihiin nimankaas waxa way waa carareen gaariga dambe ninka barasaabka ugu magacaabani uu watay baa cararay kii kalena waa cararay markay carareena waxay ku socdeen bilaa indho gaarigii saarifta ahaa waa qalbmay eelba ku dhacay ninkaas waa ku dhintay ilaahay ha u naxariisto dadkiisii iyo eheladii ka tagayna samir yaman aan ka sii cunno waleenahay ninkii kalena waa ku dhaawacmay gaariga qalbmay markii la arkay ciidanku hawlgalba ma sameeyno waa iskaga hadheen kii kalena waa iska tigi waxaan hadda rabaa inaan dhowr xirmood ka ilaahdo niman Hargeysa ka hadlay oo saddex nimankaas waxa weeye waa niman fidmo wayalayaal oo caadeystay inay dadka isku diraan oo caadeystay inay dadka caayaan oo caadeystay mas'uuliyadda ay ku magacaaban yihiin iyo sida ay u hadlaan had iyo jeer aan islahayn waa niman waxyaalaha ay ku hadlayaan qaarkood laga yaqyaqsoodo oo ninka dhakool la yiraahdo isagu dhaaranaya ilaahay meedkooda ka cararaan horta qof waliba markii ilaahay qoray uu dhimanaya isaga waa niman aad isu naqaano asalkiisa iyo farciisa naqaanaa isagu wuxuu la mid yahay ninkii ay ku soo degtay aayadda quraanka ahayd in la oran jiray waliid bul maqira hamasin masha'in mu'tadin ba'da dhalika zanim aayadii ahayd radakolo adiga horta waa lagu yaqaanaa waxaad ka shaqaysana waa la yaqaanaa haddii la saan cid lagu leyn jirayna adaa leyn jiray oo adigoo xildhibaan ugu magacaaban maamulka jeegaanta bashaab ahaan lagu xiray horta adoo taaqabso waxa weeye waxa aad ku hadlaysid waa wax taariikhda ku gali doona Hargeysa weliga ku maqnaan maysid dadka Soomaaliyeed waa beelo waa qabaa'il waxba qorilay iyo magaclay iyo dad baan islaynaa iyo gaalkacyan xad kala leenahay iyo boosaasan xad kala leenahay iyo waxba idna waxba kuma sameyn kartid mana iman kartid dhulka dhanka kale xildhibaanka ayaa ka hadlay odayaal reer Ceelaf Weyne kuwaas oo dhawaan baaq u diray isimada iyo madaxweynaha Puntland labada beelood ku dagaalamay Ceelaf Weyne beel kamida oo shalay Puntland marna uu ergoonayay marna maagayay madaxweynaha Puntland la hadlayay boqor burhaad iyo isimada iyo garaadada la hadlayay Puntland iyaga waxaan leeyahay horta markii leedii soo gurmaday odayaal Puntland argaabana ka yimi barana ka yimi ay yimaadeen nabada iyaga diilay oo yiri dawladda Soomaaliland baa anaga hawsheeda gelisay beesha kale habriyo soo ogolaatay inay nabada odayaashaasi galaan harti ama odayaasha reer Puntland inay galaan beesha kale way ogolaatay waxaadan oran wiilashii hubka naga daayay iyo hubka aadan bixinaysaan iyo maxaan ku raahdaa halada aan laaqiga ahayn wiilashiinu inay tukaraqna joogaan oo ay tukaraq ay yimaadaan idina aad sidaa u calaacashaan isku heshaan kaxayso wiilashaada tukaraq jooga kaxayso Soomaaliland waxa yiraahdaa ma jirto waa jeegaan waa habara wal iyo nimanka la yiraahdo habar jecel ka kaxaysta wiilashiina meesha la yiraahdo tukaraq midda kale waxba la sheegaya nimankiina habar jecel ceelfeen ka qaylinaya ka cabaadayo dadka ilaahay waxa wada degtaan harti iyo habar yoos labadiiba dib ku dhajiseen xaq meesha ku noolaysaan bal sheeg hartina dab ku dhajiseen habar yoos dab ku dhajiseen war habar wala isma gaadhaan
war oodkaa dheer kuma dhaxan tirto war habar jeclay maydaan tashan war biciidow maydaan tashan war tala dib isugu noqda war muuse wax idin tari maayo oo wallaahi faysal wax idin tari maayo oo kuwa dabaqoodhiyada ah ee dhulbahanti ama warsangeli ee hargeysa jooga wax idin tari maayaan maalin kasta idin yimaada